بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم جميعا. موضوع محاضرة إن شاء الله تعالى وحنقندنا قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. waxaynu ku hadli doonaa insha allahu tacaala waqtiga kooban u dhexeeya ma bayna salaati al-cishaa ila salaati al-maghrib, mawduuca daahirinta nafta. sidoo soonahay walaalayaal eebaweyne markuu inoo abuuray waxa inoo yeelay ruux buu inoo yeelay iyo naf iyo jasad. saddexdaas oo isla falgalay waxay soo saareen al-insaan al-caaqil. rabbina subhanahu wa ta'ala ruuxda iyo nafta iyo jidhka isla falgalay waxa uu ka dhigay khaliifada dhulka. khaliifaduna waa ka hantiyey maamulay rabbina subhanahu wa ta'ala. miisada koobaad oo aadamaha siiyey waa caqliga. garaadka iyo caqligana rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu qadaray inay ku ogaadaan oo ku gartaan rabbi subhanahu wa ta'ala oo ay kaga duwanaadaan xoolaha iyo bahaa'imtii. markii rabbi subhanahu wa ta'ala uu garaad iyo caqli ina siiyey ee aynu ku garanay ilaah weyne subhanahu wa ta'ala, waxa gar noqotay ilaahayna abuuray inoo nimceeyey inaynu isaga caabudno. waliba cibaadada aynu la imanayno inaynu rabbi subhanahu wa ta'ala u kala yeelno, maadaama oo sifooyinka uu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sifaysan yahay cid la wadaagta ama cid u dhigantaa aanay jirin. kadibna aadamuhu markuu cibaadada la imanayo, cibaadadaas guud ahaan waata ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka cabirayo at-taskiya. taskiyadaasina waa daahiriin nafta laga daahirinayo. kow, wax allaala wixii xadinaya ama meesha ka saarayay miisadii aadamuhu lahaa ee ahayd inuu rabbi subhanahu wa ta'ala addoon yahay, inagoo tartiibkii iyo qaabkii aynu u soo sheegnay la soo maray. kadibna cibaadada uu la imanaya waxay noqonaysaa daahiriin uu naftii ka daahirinayo inuu xoolaha mansiladoodii gaadho, daahiriin uu nafta ka daahirinayo inuu cibaadada ilaahay cid kale la wadaajiyo oo shirku ku dhaco, daahiriin uu nafta ka daahirinayo akhlaaqda teedii liidatay ee marka waxa weeye ka hor imanaysay insaanka mansiladii rabbi subhanahu wa ta'ala uu siiyey. walidaalika rabbi subhanahu wa ta'ala qur'aanka kariimka ah mansilada iyo booska la dhigay taskiyada oo daahirinta nafta la daahirinaya waa mansilo aad u weyn weeye. في سورة الشمس إلهي سبحانه وتعالى ودارتي كوب يطبن شربو إلهي سبحانه وتعالى دارت كوب يطبن كدارات جواب تلاقو دارنا يا وحي نقطي قد أفلح من زكاها. وفلاحي والليباني قفكي تزكية ليمادة نفتي سطهرة نفتي سكية طهرة وأمرك فلاحي والليباني. إلهي حلي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كوبية تبنكا دارو الكذب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي رب سبحانه وتعالى إليه شيء سيدا لو أتكيي إلا قد دارتي وحكمة إيا معناها إلى ذا هيدا كعبادة إيا أدون نماذا إلى ذا هيوي. ولذلك غفكوا يسكت طهيره لما وحيالها ينوي من دونا قرآن كوين بدن بو أتكي. ولذلك أول مرنت وحالة قد جاي تشندا إيا برارها إيا راليها شهر رب سبحانه وتعالى. أول مرنت إلهي سبحانه وتعالى ودي يريي دتك نفتو ذا تسكية كلي مادة ظاهرية. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وإلهي إليه. تاسنا وأول مرين توهليو روح إصطهرة تسكية لي ماذا مرك رب سبحانه وتعالى وحوليه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قفك إلى هوينك بغي كعب صده نفتنا وحيك علي سنيسو دون يسكرهبه فإن الجنة هي المأوى. نفت ولا قرهبه وحيك علي سنيسانه وتعريفك إيا قيحدة إلى هي تزكية إلى هي ويوي
ولذلك يا لها قرآن كيمي مرك رب سبحانه وتعالى وأدومه صلح الضيو لقد ترترجليه مرك وحوي لقد بوريه وإلى تسكيه ليماته والنصوص فربضان با مرك وحوي قد يد معاني ديدا مرك عبريد ديدا انت بكتمي مر رب سبحانه وتعالى وحوليه isagoo dhaaranaya qad aflaha man zakaaha markana wala soo laba sharciinaya oo suuradaha oo dhan baa laga hadlaya aasaarteeda iyo raadadka ay leedahay baa marka waxa weeye laga hadlaya sabixisma suuradaha la midka ah waxa kale oo laga hadlaya taskiyada cidii weyday ee taskiyada iman weyday waxay ka dheefayso waxay ka helayso iyo inay marka waa ku mutaysanayaan naar ku mutaysanayaan intaas oo dhan baa quraanka ku timi mar kale walaalayaal نبي محمد عليه الصلاة والسلام وعدا إنه كضينا إنه ربنا سبحانه وتعالى إليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحيد كسبنا عطي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أسوة يكضي شونا أكسب إن كسبنا عطي نلشيسو بوس آدوين بكلها التزكية إما إنه يسقوا يستزكيني أو يستهيريه إن مركا وحوي وصحابة يدك مؤمنين كتر ترجليني أو كبرنا تسكية كبرنا ولذلك شقوين كأنبياء وحاكمنا خاصة النبي محمد بركة القرآن كان لقاها اللي وحي وضدك مؤمنين تاه أليمي وحاكمنا أهي تسكية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وطهريا أو حك طهريا حمان تعودن ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وحبريا كتابك إلهي سبحانه وتعالى وسودتي إيه حكمة إيه مركب وحوي إلهي سبحانه وتعالى هنوكيس ولذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوة وكباقي وحكوك أهيد ولا صهر مريي يتلو عليهم آياته حجد كؤوبية حجد مركب كؤوب وقرض الراعدة ويزكيهم وتسكينية وطهرية وحمانته أيوك طهرية وكفقينية كذبنا وحبو بريا وقام كتسكيد الله رأي من أيه يسد إلهي لو عابد أيه بريا ويعلمهم الكتاب والحكمة انت هرنا بعضي أي كتشري رب سبحانه وتعالى إليه مركز الإله وين وحليه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وإذن طهريا وحرني صدر رسول مركز وحوالي آيات كيجي نكود الأخرينية حجدي نكو أوغية معجزات كيسي وته ومركز وحوالي حق إلهي كيمي ويزكيكم وأنا ظهير يا رب سبحانه وتعالى إليه مركز رب سبحانه وتعالى وحوليه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة في سورة الصف يا رب سبحانه وتعالى كعبره ولذلك شقد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي سبحانه وتعالى لصدري وحكوك أهيد تسكية إن تذكر الله طهره ولا قد طهره حمانته نبي محمد عليه الصلاة والسلام عمل كيسي شقديسي بكم وقاليسها تسكية إينو الشركة يقد إيرانيو أخلاق ذا تيدا حن قد إيرانيو إن أهداف يولالك تيدا حن قد إيرانيو أما تعال معناها لا ينو قد إيرانيو نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة ديس أي لدر دار ما يقوليه فوالله للفقر أخشى عليكم إلى هوينا كل دارتيه باهي يا فقر إذن كما عبس قبه ولكن أخشى عليكم وحين كعب ثقبا أن تبصد عليكم الدنيا كما بصدت على من كان قبلكم إن الدنيا الله يدين بلاريه سيدي تذكي إذن كهر يلوغو بلاريه أو فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم وإذن هلاكته سيدي أيقنا أهلاكتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو صحابة كليه فقري إينا باهوتان وأمرك فقري الدنيا دا يدكوسو قالوا إذن كما عبس قبو لكن وحال إني كعبس قبا وحاوية إنا معلم التزكية طيعدان بمعنى إنا هدف كيني كدودان رالي أهاشها رب سبحانه وتعالى وأدوية كترتان كذبنا الدنيا دي لا يدين فرو ولا يدكو امتحانه سيدي قال دي يدين كهري لوغو فري لوغو امتحاني كذبنا أيدن هلاكته سيدي أمده كهري أيدن هلاكته نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كان حقوق يحيى معناها أي لا هي تسكيد يقف كمسلم كأي هدف كودوية أتشوه إن أنا أهين كلئة إنه أدوية عمره
oo hanti samaysto oo tiknoolajiyad gaaro ama ilbaxnimo cusub oo marka waxa weeye haleelo ay tahay hadafku adduunyada u jooga inuu u noolaado aakhiro inuu noqdo qof ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xidhano rali ahaanshihiisa uu hadaf u yahay ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي وحان إذن كعب سقبا وأدوين إماها فقرية باهمة حل قسيدة لليهي وحل الصحابة يسككوا بينهين هنتيذا مسلمين هايستانا أي ما أنت مركا وحوية أي يسككوا بانتا وما أنت أنا بربر لقي كريم أنا ما أنت لبربر لقي كريم حل لا يسككوا بنابي أهي ووحل حيابا أي ريد مركا النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم النبي عليه الصلاة والسلام مركا وقول قالوا يدل عصب لفرته صحابتي سنا يقول سو هويان waxa uu xasuusinay hadafka weyn ee taskiyada iyo ila istahiro taskiyaduna waxa weeye qalbiga in laga meeyo oo laga marka waxa weeye saaro wixii aan ilaahay subhanahu wa ta'ala ahayn adduunyada iyo shaytaanka iyo hawada iyo naftu waxay jeceshahay iyo waxyaalaha yar yar ee hadafkii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray ee sareeyay ee qiimaha lahaa inaad marka waxa weeye ku ilowdo keenaya ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مركي laga soo laabtay qazawaadkii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu diray qaar kamida yasriyooyinkii idha futihat alaykum faris war-rum ayna qawm antum qala abd الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نقول كما أمرنا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم يتباغضون حنيه عبد الرحمن بن عوف مركا فرس يروم بالله فرته ملكي المسلمين ميل والبقانان waxa marka waxa weeye uu nabigu noo sheegay in adduunyo lagu tartami doono oo marka hore tanaafus iyo baratan u iman doono tanaafuska iyo baratankana waxa xiga in la isku xasdiyo oo ah cudur kamida cudurrada qalbiga ku dhaca ee waxyeelaya taskiyadii waxyeelaya kadibna ay isu dhabar jeedisaan oo tadaabur ba imanaya tadaaburku nabigu kaleey salaatu wasalaam muslimiinta waa uga digay in hebel ma arki karo iyo labadeena waji kala ilaali iyo waxyaalaha la midka ah kadibna yatabaaghadun wisna'ya taasina waxay ka hor imanaysaa taskiyadii bay ka hor imanaysaa nabigu kaleey salaatu wasalaam qadiyada ah iimaanka iyo in ilaahay lagu xidhnaado oo hadafkaas sare hadaf laga yeesho oo nafta la dahiro oo laga dahiro waxa la wixii hadaf ah yar ee marka waxa weeye laga marka waxa weeye fogaado waxa ku cadeeyay tarbiyadii saxaabada tarbiyadeeyay wuxuu leeyahay jundub ibn junaada radiyallahu ta'ala anhu kunna ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qilmana waxaanu ahayn dhalinyaro islaam eeg baanu ahayn ta'allamna al-iimana qabla an nata'allama al-qur'an inta an-nabiy alayhi salatu wa salam qur'aanka nabarin waxana la baray qadiyada ah iimaanka oo ah identity qofku leeyahay ee uu kaga soocan yahay intii kale ee aan iimaanka lahayn ولذلك wuxuu leeyahay jundub waxaanu ahayn dhalinyaro nabigu ku tarbiyadeeyay iimaanka iyo in ilaahay la rumeeyo oo kaliya qalbiga loo saafi yeelo oo inta kale marka waxa weey laga duwo waxaana qadiyadana la baray intii aan quraanka la barin buu leeyahay jundub kadibna quraanka aanu baranay oo fasdadna bihi iimaana quraanki waxa uu noo ziyaadiyay iimaan iyo taskiyo iyo tahirin buu noo ziyaadiyay abdullah ibn mas'uud waxa uu leeyahay waxaan ahayn qaar 10 aayadood barta kadibna ku amal fala 10 ka ma aanu dhaafaynin illa aanu ku amal fala buu leeyahay abdullah ibn mas'uud radiyallahu ta'ala anhu arda hadii ay nabiga kaleey salaatu wasalaam u qaybino noloshiisa laba qaybood qaybina waa qaybtu joogay Makka qaybina waa qaybtu joogay Madiina xilligu nabiga kaleey salaatu wasalaam joogay Makka taskiyada iyo saxaabada qaabka naftooda loo daahiriyay waa ka duwan xilligii Madiina oo kale waxaan ogsoonahay xilligu nabiga kaleey salaatu wasalaam Makka joogay ma aanay jirin munaafiqiin waxaana u jirin waxay ahayd qaabka la isu daahirayo ee la isu shiilayo ee la doonayo in la saaro inta miida ah baa qaab adag ahayd baahi ku khasbaysa in kufri caloolaad nabiga lagu la ag joogaana ma aanay jirin qaabka maxaa kamid ah sabirka imtixaanka iyo wixii saxaabadu xilligii Makka ay la kulmeen iyo waxa kamid ah inuu ugub ahayd in ilaahay kaliya la rumeeyo oo laga fogaado shirkiga in lagu yimaado taskiyatul ibaada
عبادة رب سبحانه وتعالى لو كريله إن رب سبحانه وتعالى كلجي لقبقه لا يخافون في الله لومة لائم إلهي سبحانه وتعالى إن عنانيا كدوي مايو وحكروا كم هاي طهرتان قال طهير يا صحابة النبي قال إلا أوغي حجدي ولا أوغي مشركينتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية وحين يكون خيار صن مركا مسلمين تهين كوي نوغو خيار صنا جاهلية حلق جاهلية ولذلك شرع يقول له خطابية عقلك فضرضة نفتا انت بقول له خطابية ولا هضلية صحابة النبي وحي هاين عن قناعة قارفوغا عسن وفهنسن والنبي عليه الصلاة والسلام سنة بأرميين ولذلك التزكية درجات بيليدها هي صحابة درجات واكر لهاين أبو بكر الصديق ودرجة الصديقية ده هي تقاري مركا نوفر سنة قضية الإسراء والمعراج للمتي النبي عليه الصلاة والسلام يا مركي كفار قريش يوني ما دين يقول هذا نيكي صاحبك أها مات وحو شيكتين وحالي كسو الله أبطي بيت المقدس والصمد سرق علي كدبنا وصول الله أبطي وهلا مقصوا نقضيه كورن مركا سوري لئن قالها فقد صدق هدوق سيدا يري أدو شيء إنسان رمبو شيء ولذلك درجة نوع الصديقية ده رمينت أنت على أهي وحي كتمي تزكية طهرت بكتمي مرحلة لا بعدنا مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام وتشوغي مدينة مركا وحوي الصحابة لقوا امتحاني أحكام تلسودة شيء صوم له حج له جهاد له مركا وحوي أحكام تفرها بدن للمسلمين تا حل قاعدة أهبال قوة شيء بدن كود إذا كله أحكام تفلين تيدينا ويدور صارنا يعني فليان تاسنا وحي المعلم كم إذا أمان هذا امتحان كم إذا امتحانات كي تسكير أي كم إذا ولذلك عفوا مركو نفتي سطهره وحدي باتا واركي مايو أحكام تشريع هذا كل عسلان ميس أما سؤالك كيني مايو مركو هنتهره وحو أميسيه يسوء نفسي سأطهره وأدوية يوحي لمت كأها يشركي يهودي مركا وح على وحي إلهي كلي حين يغطهره وإنه زكدي بحيه مركي صلاة تماده سوء نفسي سأطهره وحمانتي يشركي وحي لمت كأها وغطهره وإنه صلاة لي ماده ولذلك هو اختبار وامتحان وابتلاء ولذلك بعد مركي جهاد كلا سودة شيء أحكام تعلمت أو حالي لوالد كوكا شيلية سلو قرطو كينا رد شيء يا كينا رد شيء مركا ولا ليال أحكام تشريعه وتزكية واستهردوي ومخالفة الهوى صلاة فجر مركا ليلاهدو الصلاة خير من النوم مركا ليلاهدو وحكو عضانا يا تزكية يا استهرد نفط لطهيرة يهركي قارسي سنته مركا مؤذي كو يلاهدو الصلاة خير من النوم صلاة أولت كذا كخير بدن هرددة وفرسها ده هرددينا ونفتي ولا أداعي صلاتنا وإلهي سبحانه وتعالى ولا أداعي وأنا كالدويه ولذلك سأل نفط هذا وطهرته وكوه هو الراعي أدو قد وناته وإن استاكته وصلاتي تكته كدبنا هذا مركب وحويه فرق النوع سأوكته أدي وكل راحي سنة ويحد أكتهي نبكدوا وتجيا ونكي شريتو كذي ما تدبكم قبل واحد بك ما هيش لكن نكي أن شريتو كنين ما تهود بأوتها الله برنا كسي درن والعياذ بالله ولا ليال إن نفط الله طهره ولا تزكيه وحمانته يوحى نفط تعيشها يشكيك يحيالها نمتك على قد طهرا وحكرة تمية هاد وناك سنبا كرة تمية الدنيا دحين هاد وناك سنبا كرة تمية آخرها ذنبنا هاد وناك سنبا كرة تمية الدنيا waxaa ka ratimaya qofku inuu ku sabro masaa'ibti imtixaankii inuu ku sabro inuu ogaado inaan lagu waaraynin وعلى مستوى الاشخاص inaan lagu waaraynin imtixaan iyo ibtilaa tahay waxa kamida oo qofku marka waxa uu ogaanaya in taskiyadan marka naftiisa tahiraya ay tahay wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadhow la hortagay iyo wuxuu Rabbi subhanahu wa ta'ala kaga naartiisa ciqaabkiisa kaga badbaaday waxay qofka muslimka ah ee muslixa ah ee wanaagsan ka marka waxa weeye fogeynaysa wahmiga
iyo isqancinta naftiisu ku qancinayso waxyaalaha aan taskiyadii ahayn istahiridii ahayn tusaale ahaan mabda'a inuu qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon u yahay uu hoggaansan yahay mabaadi'da musaadamaynaysa ee ka hor imanaysa inuu qofku ka dhijado ama ka dheeraado ama ka sigto waxa uu markaa ku helayaa inuu ka badbaado aakhiro xisaabkii adkaa tusaale ahaan mabaadi'da ka hor imanaysa waxaa ka mid ah alxurriya almutlaqa inuu qofku aamino inuu xor iska yahay sida xoolaha oo kale haddaynu tusaale gaaban soo qaadanno laba dumara ama laba hablood oo labada muslimiin yihiin tusaale ahaan tani waa xijaaban tahay xijaabka waxa uu la imanaysaa si ilaahay subxaanahu wa tacaala u raali geliso oo rabbi subxaanahu wa tacaala aakhiro ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa uga badbaado waxay xijaabka wala imanaysaa si ay nafteeda u tahirto si ay isu asturto si ay makaarim alakhlaaq iyo waajibaadka ilaahay kor saaray u gudato bay wala imanaysaa waxay aaminsan tahay inay ilaahay addoon u tahay oo hoggaansan tahay ajar bay ku dalbaysaa dhibka ka imanaya iyo waxyaalaha la soo darsaya waa ku sabraysaa tan kale waxay aaminsan tahay inay xor tahay laakiin waxay ka shaqaysaa waxyaalaha modelka ah ee la isku dharka iyo waxyaalaha la midka ah iyo waxyaalaha la isku qurxiyo marka la yiraahdo maxaad u xijaaban weyday maxaa dariiqii saxda ah ka duway maxaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u raalin garin weyday adduunyada waa dhamaanaysaa aakhira badane maxaad xagga ugu jeesan weyday kuti xor baan ahay xijaabku aniga iyo ilaahay buu noo dhaxeeya xor baan ahay walidaalika waxaan leenahay walaalayaal taa sheeganaysa inay xorta tahay marka loo fiirsado xor maaha waayo markay dharka xayeysiinayso waxaa la odhanayaa miisaankaagu yaanu siyaadi dad buurnaato dee dhar nooma xayeysiinaysa waxaa la leeyahay isqaawi shaambogana noo xayeysiinaysa waxaa la leeyahay qosol waxaa leeyahay sidaan u labiso yacni xeerar aanay ka gudbi karin baa jira walidaalika qoftii dumaree soomaysay ee ilaahay soddonkaa casho u afxidhnayd iyo tan weligeed afxidhan ee la yidhi miisaankaagu yaanu 45 kilogram dhaafin labaduba waa addoomo laakiin mid waxay u tahay adduunyay addoon u tahay iyo shilinka ay qaadanayso waxaana iska dhaadhicisay inay xor tahay tanina waxay u tahay addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aakhiro ayay ajar iyo sawaab ku doonaysaa labadubana waa gaajoodeen laakiin midna maxay heshay shilimaad adduunyay heshay midna waxay heshay maxay midna waxay heshay ajarkii iyo istiqaamadii iyo toosnaantii waana hadafka ah taskiyada in nafta la tahiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xiro walidaalika waxyaalaha wahmiga ah ee naftu doonaysa inay kugu qanciso si aad uga leexato mabda'i ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ku xidhnaato ayay kaa ilaalinaysaa taskiyadu waxaad ogaanaysaa waxaad u nooshahay ee aad markaa waxaa weeye adduunyada u joogto mabaadi'da noocaasa ee wahmiga u badan yacni nafta qancinteeda u badani ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kuu ka cabiray أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كورا أما أفرس روحه إلهي سكي شيء وحو عابده إله ومعبودك آلهة يا له فهو إله بمعنى معبود وحو عابدك ينانيا يعني وحو عابده كامر قادنيا وحو مركا كلها لقرني والله إيمانيا وهكذا سداسو كله ويا ولا ليا وحكينيسا تسكية نفط ولا طهراء إنه قفك سقنوه الثبات إنه قفك سجناده ولذلك صحابة النبي قم مواقفتي أتكا بلال بن رباح عمار بن ياسر يا صحابة لم يتكاها أهل بدر يكون لم يتكاها وحي قلب يقود كدقي أي كسجمان إذا دنيا أوردني أي مركا لعل لي تميسي أما أي لقى أود بدنا وحي كسجنادن وحي أهيد نفتو ذي طهيرين نفتو ذا أي طهيرين ولذلك markaad ogaato weyninka ay leedahay waxaad ilaahay ka dalbaysaa waxa aad fahmaysaa waxa aad bixinayso iyo waxa la imanaysaa inay iska kooban tahay inay iska yartahay haddaba haddii laga tago taskiyadii laga tago qofku uu dayaco inuu naftiisa tahiro oo naftii shawaa'iba ay soo dhex gasho maxaa ka imanaya mashaakil fara badan baa ka imanaya waxaana kow ka ah xasadkii adduunyaad ku tartamaysaa noloshii aakhiraba dilaawaysaa ee ka badnayd ولذلك أوف مركب مصيبة كل عضو محل يشعي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولذلك أنت نودوين تشوقنا إنا لله مركب آخرتك لنا وإنا إليه راجعون لكن مركب الدويدي أدوه شقيسني سكاها لك سنتو إذا كنت ترتميسي وحي نقول إن خسر الدنيا والآخر الدنيا
آخرة خسارته. ولذلك الله سبحانه وتعالى تصالها وقبحي دول كقالة نفتو ذا عن طهيرين نفتو ذا عن قال لماذا يشرك يحمانته عن كطهيرين وحيمانا يا حسد بإيمانية إن الحسد ده عدي كلا إلهي سبحانه وتعالى وأدو يسيه إن مبدأ أقول نقض أدويه إنه مبدأ متحن ومادية ومركب وحوي أدوية وشقيصة ومركب وحوي راس مالئة بمعنى أن وحكله سدوا كهل لها شيل المويانة أن وحكله مركب وحوي النورين إنها النقطة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القميصة إن عضي رضي وإن لم يعضى سخط تعس وانتكس. النبي عليه الصلاة والسلام وحهوغي أو بلنبلي روح الدون روح دينارك يا درهمك هدي دينارك يا درهمك هله وهرالي نقنية رضي وإن لم يعطى سخط هدي أنه هلنا وعرونية وحكى له كبيرة ولا ليال انحراف البوصلة انتهايه كالمه هو مرة ميل قاطه ونفتي أي مركب وحوي سوق من ويده ولذلك هذا دوغ نوع عاصر إيهابا وقاس دبوا ku imanaya qofku markuu nool yahay waxa laga baxaya waa jidka Rabbi Subhanahu wa Ta'ala oo sharciyay taskiyada in la istahiro waxa uu dawo ka yahay taskiyadu futuurka ajziga gaabiska qofka ku imanaya aadama inuu nahay manihin marka waxa weeye qaaran daarayni walidalika maclamkii taskiyada aha markasto la quweeyo oo awood loo yeelo oo la nooleeyo waxa soo noolaanaya nashaadkii iyo marka waxa weeye degdegii cibaadada loo degdegay ayaa marka waxa weeye imanaya walidalika walaalayaal waxa leenahay hadaba qofku sidoo ku ogaanaya ama sideebu ku helaya ama sideebu ku xaqiijinaya taskiyadii sideebu ku xaqiijinaya sideebu nafteena u dahirayna oo waxyaalaha aynu sheegnay uga dahirayna oo cadawga taskiyada ka hortaagan ay ugu horeyso naftaadu ay ku xigo shaytaanku ay ku sii xigto bi'ada iyo cidda kugu hareereysani ay ku sii xigto saddexda qolo sideebaad uga qaalib noqonaysa uga awood badanaysa oo aad xaqiijin kartaa inaad naftaada dahirto kow waa inaad hawadaada khilaafto naftaadu waxay jeceshahay inaad markaa oran karto waan ka diiday ilaahi subhanahu wa ta'ala markuu taskiyada ka hadlay maxaa la yiri وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وكنفتيا كرهب وحي عليه سنيس ما تهوي إليه مركز الله سبحانه وتعالى حشي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفته ومن أمر ريسة حمان أمر ريسة وحيو أبو رنتهي حمان بيو أبو رنتهي وحيو أبو رنتهي وحرب سبحانه وتعالى عن هذا الجنين نبي عليه الصلاة والسلام تايدا وسيع الدين ما دام امتحان ابتلاء والدنيا الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم مبدأ الابتلاء مرة دي أدوية لو تشوقه نبي عليه الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره نار توحالقوها ريريي وحي نفتش علي سنيس الشهوات كأها تنظر وحالقوها ريريي مكاره وحي نفتو أي نعبي لبسنيس ولذلك وحي لها فضل قصة رأي محاكم ذا ويسدل ويسيسن يحلي قبو يحلي ذا لبك تشره إسباق الوضوء عند المكاره فضل قارة أي أسو أروري ولذلك أجيدوين كالشريعة وحاكم ذا أي نباهنا هاي إلينا فهنه إنه الضوم إلهي قلنا هاي وحاوي التسكية إنه نفتينا طهرنه إنه طهرنه وحكم ذا وحيالها لقو قاريو إن قلبك الله يميره ولا قصاره أمراض يحرون هذا كله عن أكسون هاي وعن كوبنا هاي نبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أي نبوة المامي عليه الصلاة والسلام تلك وحا هذا وصلت هذه هلاكته وهجاجية هذه حماتنا وحمانية وانا قلبي قال النبي عليه الصلاة والسلام مركز النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا الإمام مسلم صاريه إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي ما يقابك أصورنتهين يا قرح بدنتهين من إيجيو
isqaabka aatihiin eegi maayo jirkiinana ilaahay subxaanahu wa tacaala fiirin maayo waxaa la eegayaa qaabka marka waxa weeye quluubtiinu ay tahay iyo sidaa u camal fashaan ay u shaqaysataan walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa acmaalikum marka qalbigaaga inaad la socoto heerkeebuu marayaa halkeebuu taagan yahay xanuunkeebaa ku dhacay sidee loo daweynayaa intoo dhani waa madlab sharciya weeye waa madlab sharciya maxaa laga daweynayaa laba shayba waa laga daweynayaa shahawaadkii iyo wixii naftu jecleed waa laga daweynayaa shubuhaadkii ama in qiil loo raadiyo waxay naftu jeclaysanaysayna waa marka waxa weeye laga daweynaya waa laga daweynaya walidaalika walaalayaal qalbiga qofku waa inuu la socdo weeye oo markaad ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa maqasho إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلهي سبحانه وتعالى وحليه مؤمنين وحي هذين كو مركا إلهي اللي حسه قلبي قد رقمه اسكت قديه ودرين قاله إلهي سبحانه وتعالى كالميسته وترسارته وعنو بهالنا ورا لي المركا أنه لأنها مرض كقلبي يكون عامر بهير بتاعيه mar wuxuu taagan yahay inuu ka hor istaago taskiyadi iyana naftaada dahirto marna wuxuu taagan yahay inuu cudurkaasi noqdo virus galay qalbigii galay oo munaafiqnimo wax lamida oo keeno wal billah وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلهي سبحانه وتعالى عليه وحال حستاحلي إليه كوي منافقين تاها يكوي قلبي قوده وكتره مرض حنون إلهي رسولك يسوتونا نوما يبلغ قادن وحان دقنا أهي إلهي رسولك يسئلوه قاسم وايو ومن أمراض القلوب شيطان كنا وحوق شقينا يوا قلبي قاقوي قلبي قاقا سدو فساد لها ومكا وجه لها تسكيدي إصطاهرينتي أيو كينيا هدف كي يولكي سري لون ولا سيوكا مشغول لها ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الله سبحانه وتعالى عليه سيو غيره وهي الشيطان وكل ذي قلبي جودة فتنه كو قلبي جودة وبكاء حنصنه يكو قلبي جودة وانجي ولذلك علامات بيلاده أي كم تهي سيدا إنه شاقني إن قفكو قلبي جيسي وآيات في إلهي لقي الكلام واعي وعكمل أعماشي مركا وحوي نفاق عهد أعمالك هيدا ليمني يوحي نفته تعالى سنين له قال سمي بل لو غير هادني النفط أن لقد طهيرين أن لقد ريبين قف أن نفتي سكورا كرينين مايا هل كان هلا يا كتشو وقف مركا لو سوي وقف أسند ليس نفتي أسند ليس لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة إله سبحانه وتعالى مركا الحليه هي مركا دبرك لا يهل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني هذا الكهوج العنينة هود بعيننا سيكون قلبي قوض بكي أو حنوسني أنا مركا طمع قليل أنا طمع قليل لذلك هذا الكيلة العنينة مركا وحوي لبدا تشيسي كدحيي وحكينا إنه كبير وقلبك طمع وكبير طمع عاصر لقو طمعنا يحمان لقو طمعنا إلهي سبحانه وتعالى منافقين تأين بدن بكاء كور رمي iyo xanuunka haya qalbigooda haya markale walaalayaal waxa kamida waxyaalaha laga dheefayo ama lagu gaadhayo in qofku uu taskiyo la yimaado oo naftiisa tahiro waxyaalaha musabbidaadka waxyaalaha qofka dibdhigaya xanuunka ku ridaya waxyaalaha qofka caajis gelinaya naftiisa caajis gelinaya waxa kamida samaacu lahu hadalkiisa liita yani tarabaqashka an meergaarsiisnayn ee kala xmadaanshaanka أن سير دنين أي شيء جيان تذكر عن سير دنين أي شيء جيان سماع اللغو أي القرآن بحي أما حلو بحي اللغو وهذا بركمتال أن ميل قارس سنوي إلهي سبحانه وتعالى وليه والذين هم عن اللغو معرضون مؤمنين وكوا لغوي هذا كيس الديرات يعني معناها كفردين كله حنيوي ولذلك أنا سكون مشغول صح وحن معنا لهين أما موسيقى الله راعي أمين الله راعيني أما شكفرات هذا أما وحلم إذا هذا اللغو بالإله وهذا الآن فائدة له إسلام هو حاول نقبل الروتينية هذا الكائن ليه نهاي إنه سامين كلية هاي نفتين وكلية هذا هو في ستان داني يرضى هاد بترند جتشرة
أي عرب كودا كبدا إساقو بسكا كلا فوشا أما مقتضى مريا أركيسا إساقو كوعن علينيا ترندقي حلقا تشري ترندقو حاوي هاشتاج أما شيء حلقا فافسن صالحان هيس عصبا صوب حضي وحركيسا إساقو قاضا يون إسلام مقن وأن كلا تشوغين أو مركا أما بس سارا أما وضمري يعني عقل الباطن كيسي بيقى شيء هذا الكي لغوغا أهابا كتر بطي وايو وحو كدقي مبدئي أها إنو كتشيستو إنو كتغو والذين هم عن اللغو معرضون وكوي لغوغا إيا هذا الكي أنترا بغشكا أنسير اثنين كتشيسانيوي ولذلك هذا الكثير ذني مركا مشكلة دي هو تماده الدنيا ده إيا نفتا هذا حل كون نقل ماي حدين سيكا لا ودقنو وحين ورنكرنا وحفائداه قمن وهذا الدنيا ده كهليسو يمد الآخر كهليسا من نمتشرو وحكالو كميدا قول الزور هذا الكيس البينتا إيا والجهل طيشك إيا فضيتك إن لقد يرادو إن لقاته نبي قول عليه الصلاة والسلام مركي صونك لقاهد لي إيا تسكيدا صونك كتشر تحلقي حقيقو بيسو يعد حقيقو بيسو من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه روحا أن كتين قول الزور هذا الكيس اللي إيا والعمل به إنه مركا كو عمل فلو هذا الكيكي ليتي أما أولي مارتو وحيلها جهلقة أما أن معناها كفردين فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشراب إلهي وحباهي ومقبه إنه كتغو عنتديس يا عبديس عنتدا يا عبدة يا قلمضة يا وحلمت كأهي الصونك الله يا حرام يلي وإنها تقاده معنى كي أهاي تزكية إنها نفتها طهيرته إنها تقادوه ولذلك قال يا روحان لا نهاي قفكو وإنه فهم عبادة مقصد كيدي وجهده وإن أنا كنق إن عاده أما الطقوس وإنه فهم محاد تكنيسها مبدأ إلا تكدو محو كينيا الدنيا يا آخره محاد يفسنيسا محاد قادريسا ولذلك النفتي هذه أنا تكون طهيرة إن صونكي يصلاتي وهي لم يتكاها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يا آيات كلامك يا شيغيان معالمتا اسكو ظاهريده عبادات كلا اسكو ظاهري لا اسكو تسكيينيو ee marka lagu la iimanayo adduunyada dhexdeeda waxa kale oo kamid ah walaalayaan oo qofku taskiyada uu ku gaaraya oo ugu kaalmeynaya inuu ka takhaluso ka dheeraado hadalkii badnaa cuntadii badnayd iyo hordadii badnayd saddexdaasina waxay dilayaan garaadka qofka iyo marka waxa weeye hamigiisa dilayaan walidalika culimadii hore waxay oran jireen qofka waxyaalaha kala dagaalamay yoolalka waaweyn waxa kamid ah inay cunadiisu badato hadalkiisuna bato furjadiisuna badato saddexdaasi waxay keenaan alkasal oo aha caajiski inuu qofku marka waxa weeye qof iska liita oo waxba tahli karin oo noqdo waxay kaloo keenaan cudur qalbiga ku dhaca oo ah inuu qofku ku mamo ama uu ku marka waxa weeye dhago maladaadka adduunyada macmacaanka adduunyada maladaadka adduunya si loo yareeyo waa inaad maclama taskiya gaadho kadibna aad yareyso cuntadii dheeraadka ahayd iyo cabitaankii dheeraadka ahaa iyo hadalkii dheeraadka ahaa iyo hordadii dheeraadka ahaa si qalbigaagu iyo maskaxdaadaba ay noolaadaan walaalayaal intaasi waa intayna ugu kaalmaynayso taskiyadii iyo naftii in la daahiriyo waxa kaloo ka mid ah in la kubciyo qofka waxyaalaha naftiisa ku jira sida iimaankii oo kale rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku tilmaamay iimaanku inuu kordho inaanu nuqsaamo wuxuu ku kordhaa طاعاتك إلهي سبحانه وتعالى وحانو كن نقساما معصية يا إن لقل لي حدو تسكية لقل لي مركا وحيالها ينبهنا إن نكردنه وحوجنا وحاكم إذا ولا ليال أعمال القلوب قلبك عمل لقى قبنيه سيدا جوارح لنا يحبنه والله هي دمدي أفكي وحلمتك هاي أي أوليهن واجبات قبنيان با قلبك إنه لو أوليه واجبات قبنيه ولو قبها يقف كم من كائن لا يماته ولذلك الله سبحانه وتعالى وحوس كل ماني أعمال القلوب يا أعمال الجوارح في سورة الفاتحة وحاكيم إنه الله وين يري إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وحي تلماميسا عباداتك لا إيمانيه أين النقاني أما قلبي وهقبت أما جوارحي وهقبت إياك نستعين وحي تلماميسا استعانتي إلى الله لك الميسته وعملك على رأي من لو كالميست
labada tiir baa lagula imanaya taskiyada in la weyneeyo waxyaalaha kugu kaalmeynaya taskiyada iyo istaahirinti ولذلك رب سبحانه وتعالى وحوليه إياك نعبد أذيك كلجا وأنا كل عبادي سنينا وإياك نستعين أذيك كلجا أيان كلمة ويدي سنينا كلمة سعيد إياك نعبد وحكم إذا إخلاصك إن الله درتي لون ولاده إن الله درتي لون ولاده وأنا دوي درتي لون ولانين أما آدم درتي أن لون ولانين يا رب سبحانه وتعالى لون ولاده وحكم إذا إن قفك تعيل لي ماته تعيلك ولا يمريا وتعيلك رب سبحانه وتعالى ومحبتي إلهي تعلاني ومحبتي رسولك عليه الصلاة والسلام يتعالك كليما يا إلهي سبحانه وتعالى وخشيتي ينو خشوعه وإلهي سبحانه وتعالى كيابه وحكى له كم ذا إن أبدي إنه إلهي سبحانه وتعالى أصل لابته إنه رب سبحانه وتعالى أصل لابته ولذلك عبادك النوع عاصة إلى رأي من يوين إلهي لو قريله وأنا إلا وكبعيه تسكيدي لو كبعيه وإياك نستعين وحو رب سبحانه وتعالى كقعب ريال عبادة الله يمريه ينرش جود آدمه كتشره إن أنا كم مارمينين إن رب سبحانه وتعالى ومركه وحويه كان مكوي ديسته أو إلهي تلسعته إلهي حرجي سقبصده إلهي سبحانه وتعالى فليتوكل المتوكلون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا آيات كلمتك وحكى له كم إذا ولا يروح لها لو بهنيها إلى إنه تسكيده يستهيرين تكوكب عنه أو كموت عنه أعماش الله قال إيمانا يجوارحه سيدا عنده دقيه أفكي لابتي قعمه الدمدي فرجي يوحي لمتك أعماش الله قال إيمانا يجوارحه إلى أن ترى إلى لنا لقو كلامك وحوي أدقي هاي يقف اللي وكود داريه أي قف بالنفتي سطاهر تاعي أو أي دورنته حكم ده أعماش أسمرك الله يوقف سنتها وحنا وعمل لو بهنيها إلا قتكو وعمل لو بهني إلا قتكو ولا ينقره بي النواهي بالي لحظة نواهي ذا درجات سيكرة له أو المسجرات با أقص الرئية شركة وهو الرئية سحرك كفرية يحالها نمتك نواهي أمرك الله سكوي لحظة وحيانا رأي مرأيه وحيانا لقتك وحكم ذا أما كم ذا خانت نواهي ذا اللي نقره بي إن أرقينه وفي سنعه وأرقينه سيدينه وحكى له كم ذا إن أينو حير سمين وينه أما أب سمين وينه وحين أفك جنينه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الحلال ميرتان وهذا الحلال نقودتان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إلهي سبحانه وتعالى قابك وسقوح ليداوه إن نفتل طهره ين ندخل اللعبه فرجنا الله إلهيه ويسكوح عليه ولذلك وحيالها لقد ديفه إن قفك فرجك يسوي إلى وايو أما وعنده يسوي إلى وايو أو بالطي موضه قران صده وإلهي كحرمي وقران صده أما أداوده وحكم ذا ولا العيال إن تسكيري أي بماته قفك نفتي أي طاهر نغميته قف ليتا ونقضه إلهي خلقي يسأكتدن وكل ليتا إلهي سبحانه وتعالى يتسنى وكل ليتا تسكيري بودليا ومركب حويه ولا دقالمي ولذلك إلهي سبحانه وتعالى حليه قل للمؤمنين تذكر مؤمنين وحد كتر أعضاء سي تسكيه دودي يا نفتهر دودي يا استاهرين دودي أكر ليان أكب عيان وحد كتر أعضاء يغضوا من أبصارهم وأرقين اللعبة عوراتك يا حلاه لمتك أرقينك اللعبة ويحفظوا فروجهم فرجين ندورة أو إلالية ذلك أزكى لهم سلاسة أظهر نام بدن ولذلك ونجي صومرنا مركل لقيت شيء استحمانته إيه هذا الكيس الليته وعليه لي تسكيه والذين هم عن اللغو معرضون مركل لقيت قطيشك يفضيتك يدعن كيس حنة وعليه لي تسكيري يوناجي استاهرنتي بالهلي وهو الله سبحانه وتعالى ليه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعليه النبي عليه الصلاة والسلام حاجة وقت صلاة وحي كاري بيساء الفحشاء فحشاء ووحل على وحي ليتي يمرك وحوي أنكم منهم إيه والمنكر منكر كي بيكاري بيساء ولذلك ولا إله إحنا بهنها إن عينو يسود اللي ترنو نرشي نقود أهان مبدأ التزكية ده أهيو مشغول كنا دويو أما أنسكر هذا نقول إنه هنو
naf daahirinta iyo daahirin kordhinta inaynu labadaa isku dayno ayaa muhiima walaalayaal qaabka ay isugu xidhan yihiinna waa qaabka aynu tilmaanay ay salaada iyo alfaxshaa wal munkar isugu xidhan yihiin hadda tusaale hadaynu bixinno salaada aad tukanaysaa kolkay kaa reebi weydo faxshaagii iyo xumaantii iyo munkarkii iyo wixii la midka ahaa waxaad ogaanaysaa salaadii lagaaga baahnaa inaanay ahayn waa ilaahay wuxuu yidhi waaqimi الصلاة ina الصلاة tanhaa can الfaxshaaءi wاlmunkar lidalika qofka tukada iyo ka aan tukani hadday isku dhaqan yihiin yani xagga dhaqanka ay iska mid ka yihiin dabcan dhaqankeenu jeednaa waa dhaqankii aan salaada ahayn waxa ka mid ah akhlaaqdii waxa ka mid ahaa laabtii xaadhnayd waxa ka mid ahaa ilaahay subxaanahu watacaala oo hoggaansankii loo hoggaansamayey waxa ka mid ahaa ilaahay subxaanahu watacaala hadafkii uu inoo sameeyey iyo wixii la midka ahaa ayaa ka mid ah marka walaal waxaan leenahay salaadaasi tii la rabay ma ahan waa inuu qofkaasi ku laabto weeye waa inuu qofkaasi ku laabto maadaama qofkii salaada tukanaya aanay salaadiisii ka reebin xumaantii iyo faxshaagii waa inuu salaada wa aqimi الصلاة salaada toosi salaad qumantuko ayaa rabbi subxaanahu watacaala u leeyahay waxaan leenahay walaalayaal camalka saalixa ah waxuu ilaahay subxaanahu watacaala ku aqbalayaa waa taqwo waa khashyo waa inaad ku laab xaadhan tahay waa inaad ku san tahay oo aad marka waxa weeye ku qanacsan tahay waa inay dhab kaa tahay oo ilaahay dartii kaa tahay camalka saalixa la imanayso inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin baa rabbi subxaanahu watacaala u tilmaamaya walaalayaal aadamaynu nahay basharkuna ma gafi waayo waana la khaldamaya ilaahayna subxaanahu watacaala waa inoo jid bixiyey waxaa lainoo sharciyey inaynu toobad keenno marka gafku inaga dhaco walidalika waxaan leenahay walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala xumaanta timaada waxaa loo sharciyey in laga toobad keeno kuwa markay dambaabaan ama xumaanay ka dhacdo dakaruu llaha faاstakfaruu lidunuubihim waman yakfiru الdunuuba ila allah muminiintu waa kuwa markay dambaabaan ama uu gaf ka dhaco ilaahay xusa ee xasuusta kadibna istikfaar la yimaada yaa dhaafa dembigaan ilaahay subxaanahu watacaala ahayn waman yakfiru الdunuuba ila allah ilaahay mooye yaa dhaafa dembiga ayaa rabbi subxaanahu watacaala tilmaamaya markale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyaalku waxay tirtiraan oo baabi'iyaan sayi'aadka way baabi'iyaan lidalika saxaabadu waxay ahaayeen markuu dembi ka dhaco qaar ilaahay xuso oo xasuusta bay ahaayeen oo dembigaa ka toobad keena walidalika ilaahay subxaanahu watacaala quwadiisa iyo awooddiisa inaad istixdaarto fii miisaan almacsiya ama fii meydaan almacsiya markaad ilaahay istiraahda caasi ee aada xasuusato ee xusto ilaahay awooddiisa iyo inaad berri hor istaagayso iyo inay xisaabi dambayso taasi waxay ka mid tahay min aclaa darajaati taqwa ilaahay subxaanahu watacaala baqdinta laga baqayo darajaadka ugu sarreeya bay ka mid tahay darajaadka ugu sarreeya ayay ka mid tahay ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa iyo galladiisa lagu gaadhaa taskiyada lagu gaadhaa naftaada waxaa daahirin kara rabbi subxaanahu watacaala waxaa taskiyada ku waafajin kara ilaahay subxaanahu watacaala walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh maa zakaa minkum min axadin abada walaakina allaha yuzakii man yashaa wallahu samiicun caliim haddii aad ilaahay idinku galladaysan oo fadligiisa iyo galladiisa iyo deeqdiisu aan idin soo gaadhin maa zakaa minkum min axad qof idinka midi ma daahireen oo marka waxa weeye taqwada iyo alla kacabsiga ma gaadhin walaakina allaha yuzakii man yashaa ilaahay cidduu doono ayuu taskiye siiyaa oo daahirnaan oo siiyaa wallahu samiicun caliim ilaahayna subxaanahu watacaala ka marka waxa weye wanaagga badan ku ahaada walaalayaal waxaan u baahannahay inaanu istixdaarno kownka iyo adduunyada ballaadhan iyo mowduc aynu kaga jirno iyo hadafka aynu leenahay saddexdaa qofka hadduu isu keeno waxuu ogaanayaa wax badan oo jadwalkiisa ku jira inaanay saddexdaa miisaan iyo macno ka lahayn wakhtigaynu haysanaa 24 saacadood weeye markaynu 8 u qaybinno oo 3 meelood oo kala duwan ka dhigno meel waad hurudaa oo adduunyadii waad ka hurudaa meelna adigii baa isku mashquulsan meelna waxay ku baxday wixii naftu aanay ka maarmayn walidaalika meesha halkaa boos thuluthka inoo soo hadhay haddii aynu adduunyo kaliya ka buura garayno yani aynu ka buuxinno
وحميشة كبحية معلم كيها تزكية وصدح قضبئة كردونا مد بين توبيه سقاضي سيهدين ويعنه وجهيها سحنه وإلهي سبحانه وتعالى درتي أنه لأنه وحذوغان إيسا إن توبيه سحتها قاطني وإنه لو شيء نسيدق من الإكس واللعبات إلها حقه يا رب سبحانه وتعالى إن أبوري إن أرتيسي جندي سواء حقتها إن حسكي سلا بضيو يدرون حيكمتها وحيالها قلبي النورية كينية إنه قفك تسكيد إليه ماتوا وحكمتها ولا ليال وحيالها تسكيد كينية قفك نفتي سطهيرية إنه علمي قبرته إنه أقون تبرته روح جاهلك تسكيد سيدو نفته وطهيرية وكيقدي سنته سيدو قفك عالمك علمي قاله ونفتي سطهيرية وتسكيني جوابتنا وحيتهاي وحانا يسوقوا دقمينين ننوح أغيهي مداخل الشيطان والنفس والهوى ننما قرنا يوم ما أغه وحبادنا وكولا مغضة إن يتهاي وحق من وعاد سمينيسو بهدد أقوانوا لهي وحادو قال لهي إننا يستحنين وقمنين أو توصنين وضد على هي ساعتهاي وضعت نفت هذا كلها لقرنيسو لذلك رب سبحانه وتعالى قد يدى وعبري وحالين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مركز رب سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء يبوين وحكي أبوه كريئة عد علماء قلت لبك يا أبو ولذلك قفك عالمك وحو فهميا بمعنى وحو قرنيا شيطانك علمديسي ماشي وكسو قليو iyo naftu meeshay ka soo galeysay kadibna waxa uu haboon ee uu kaga jawaabi karo ama kaga falcelin kara u fududaanaysa ama ruuxi jaahilka aha labada iyada ma fahmi karo waxa kamid ah walaalayaal in gaayada iyo ujeedada teeda sare inaynu marka waxa weeye saafi ka yeelo nabigu xuli alayhi salatu wassalaam ma nahaytukum anhu fajtanibu وما أمرتكم به فافعلوا ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رجال وحولي النبي عليه الصلاة والسلام وحي عن ذي كثيبه كتجا وحي عن ذي أمرنا وحكى أودان لي مات وحيس كترتان مركب وحوي كثرة المسائل إن سيفها قدام وهذا وحبار بعدان وهذا مركب سؤالها أكاكينيسان سؤالها واوين أكاكينيسان فلسفدي نوش أكاكينيسان هيراته عمل كينو نهبطه فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أنبياء ذين وي خلافين مسائل كودن وي بدناي نبي حلي عليه الصلاة والسلام أمده نكهر وحا هلاقي كثرة المسائل اختلاف الأنبياء كثرة المسائل وحاول إنه قفك نقضي قف نظري قف مسكحة وكشقينية هذه سلاس نقطة سلاس محي نقنيس هذه سلا لا يرى من سلا نقني هذه العيال كدي محي مرية صلاة أنت محي كدرانية إنه قفك عمل كي نبيك وخلافه اختلافهم على أنبيائهم بمعنى النبي محمد عليه الصلاة والسلام دين كيسو حيكون قطنتا إلا شقيه العمل كما قطنتو إن نظري لقدقه إن يعني وح أفكا أو نهل لقدقه تشارك هذين كأنه واقعين قف بوحوا أمسيه إنه إلهي كلقيه إنه إلهي سبحانه وتعالى مذيه إلا عابده إنه إلهي سبحانه وتعالى عليمه إنه قديره وحوا أمسيه إلا دمريه إن إلهي لهر استاغيه حتى نصل عادة كلماي أو صومي ماي أو زكاة بحين ماي نبي محمد عمل كيسي هو خلافي فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم مسائل كودن وابدنايين أنبياء دون وخلافين أي إليه ولا غير علىها نفترض يقول خلافي وحكم إذا إن عرض الله يريه نبي عليه الصلاة والسلام وهي لها كهول استاجي تذكر رب سبحانه وتعالى أما تدارك نبي كمدها وحكمدها لا تغضب عرون أي نبي عليه الصلاة والسلام وحكى كمدها ولا ليال دوام التوبة والاستغفار إن إلهي سبحانه وتعالى دم دافع لو يديشته نبي محمد عليه الصلاة والسلام هير وطاهرين نفته وطاهرين يكجاري وحاول الماما يا إلهي سبحانه وتعالى دم دافع ويديشته أنا أقول عن إلهي دم دافع ويديشته
maalinkii 100 jeer maalinkii 70 jeer وهكذا waxa kale oo kamid ah walaalayaan in ilaahay la tala saarto waxa loo tala saaranayaa inaad macaasidii ka tagto waxa kale oo loo tala saaranayaa inaad cibaadadkii la timaado labada hadii aad markaa ilaahay u tala saartana ilaahay wuxuu leeyahay walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana kuwa anaga dartayo u dadaalay waxaan ku hanuuninaynaa wadooyinkayga rabbi subhanahu wa ta'ala u leeyahay inta ay nagu joogto maxaadaradu waxaynu isu dardaarmaynaa dardaaranka rabbi subhanahu wa ta'ala iyo dardaaranka nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo dardaarmay inaga iyo kuwii naga horreeyay isaga ka cabsano rabbi subhanahu wa ta'ala waxuu nabigiisa amray inuu inoo dardaarmo sida xadiiska Irbad Masaariya fi sahih Muslim ku yimi inuu nabi saxaabada u dardaarmay in ilaahay ka cabsadaan وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة Irbad Masaariya wuxuu leeyahay nabigu waxa uu wacdi indhuhu la ilmeeyeen qalbiguna la galgishay markaasuu nabi alla noo dardaaran nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu waxa in dardaarmaya in ilaahay ka cabsataan oo ismaqashaan oo sadeecdaan hada subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk